oo dhan waxaynu nahay qoys baynu nahay isku af baynu nahay isku diin baynu nahay isku dhaqan iyo isku culture baynu nahay innagoo sidaasaynu haddana islaynay waxa loo baahan yahay inaynu ummadeenni meel isugu keenno oo dib u heshiisiin u samayno oo inta la is saabaxo wixii la soo dhaafay la iska ilaawo walaalayaal waxaynu soo marray 14 sannadood oo burbur dagaal dhiig daata qaxooti iyo shidaynu ku jiray muddadaa dheer wixii ina gaaray waa ogsoonahay waana ka xunnahay Soomaalidu waxay tiraahdaa tagtadaayo timaadda u tooghay waxa loo baahan yahay inaan mustaqbalka ka fakaro mustaqbalka Soomaaliya iyo sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed inaynu ka fakarnaa loo baahan yahay haddaynu baarlamaankiina doorannay madaxdiisiina doorannay madaxweynena doorannay shirkii weli inooma dhammaan oo dhismay inooma dhammaane hawl badan baa inoo harsan waxaa inoo harsan inaynu xukuumaddii dhisnaa laamihii kale oo dawladdana inaynu dhisnaa inoo dhiman markaynu dhisnana waxaanu maleynayaa hawltii hore ka culus oo runtii loo baahan yahay inaynu dawlad iyo baarlamaan iyo shacab isugu tagno si aan Soomaaliya u soo celino qarannimadii ka burburtay iyo sharafteedii baa ina hortaal waxaynu wada ogsoonahay in loo baahan yahay inaynu qarankeenni dib u soo dhisno hawlaha ina hor yaalna waxa ugu horeeya waa dhismaha qaranka heerka ugu sarreeya oo baarlamaanka ah ilaa meesha ugu hooseysa oo ah gobollada iyo degmooyinka iyo dawlad goboleedyada dhisan iyo kuwa dhismi doona inaynu dhammaystirno yaa loo baahan yahay waayo qaranku wuxuu u baahan yahay madaxdii hoggaamin lahayd muddada ku meelgaarka ah ee 5 sannadood ah in la dhisaa waxaana inala gudboon si aynu waqtiga aduuga u gudubno xukuumadda aynu dhisaynaa inay noqoto mid karti leh oo fulin karta dhibaatooyinka badan oo Soomaaliya haysta
sidii looga gudbi lahaa fulin karta baa loo baahan yahay inaynu dhisno. waxaa loo baahan yahay inaynu jamhuuriyaddii Soomaaliya midnimadeedii soo celinno. waxaa loo baahan yahay inaynu nabad horseedno. hadda waxaa la yidhaahdaa fulay xanti ma mooga. dadkiina badan ee kor fadhiya ee Soomaaliyeed waa ogahay waxay ugu xamataan oo anigu waa ogahay oo waa la socdaa. waxaad ii taqaaniin أنا مركان ويدين شيء وحدي تقانين نندقال runtii ma tahay horta misaaniga moodayna sidaa tahay maanta wixii laga bilaabo awal waxaan ahaaba maanta wixii laga bilaabo waxaad igu talagalaysaa nin nabadeed oo diyaar u ah inuu ummadda Soomaaliyeed intay isa saabaxdo anigaad horta isaabaxaysaan dhammaantiina intay isa saabaxdo inuu meel isugu keeno qarannimadeediina dib u soo yagleelo oo horseed idinku noqdaad iigu talagelaysaan. mar haddaynu hawshaas gelayno waxaan jeclahay inaan dul maro dhibaatooyinka culus oo ina hor yaal ee loo baahan yahay inaynu si degdega wax uga qabanno. dhibaatada ugu culus ee ina hortaal waxaa weeye waa abni darro iyo nabadgelyo la'aan. waxaana loo baahan yahay waddanka inaynu nabad ku soo celinno oo aynu runtii qof waliba naftiisa uu ku talagalo inuu nabad ku seexanayo isagoo oo dadka kale walaalihiisa gacmaha haystana inuu mustaqbalkiisa iyo mustaqbalka ummaddeena wax ka dhisi doono. amniga aynu u baahannahay wuxuu u baahan yahay oo aan jeclahay inaan ogeysiiyo dalalka IGAD iyo dalalka kale ee AU iyo adduun weynahaba inaynu u baahannahay saynu nabadda u xasilinno oo hubka isaga dhigno oo intay is saabaxno gacmaha isu qabsanno midnimadii iyo jiritaankii ummaddana u soo noolayno. waxaynu u baahannahay ciidan AU iyo ciddii kaloo diyaar inoo la'a ay inoo keenaan ee amnigeena la ilaaliyo. waxaan kale u baahannahay IGAD iyo AU iyo qaramada midoobay iyo ururada kale ee aynu ka tirsannahay sida Arab League inay inoo suurageliyaan inaynu dib u dhisno ciidan amni ee Soomaaliyeed oo nabadda hanan kara oo ah ka kooban boolis iyo military. ciidankaas oo ciidanka kale ee aynu adduun weynaha ka sugayno ay iskaashan doonaan hubkana inay ka dhigi doonaan waayo danteennaa ku jirta. dantu waxay ku jirtana waa lagu tallaabsadaa ee lagama baqo. waxaan kaloo u baahannahay si nabad loo helo hubka dhigistiisu keligeed waafi maaha. waxaynu ognahay dalkeennu wax badan inuu qasnaa. dad badan oo qas ka shaqeeya inay jiraanna waa ognahay. anuu aan haatan qof shakhsiya waxba ka sheegayn laakiin beladii aad qarsataa waa ku dishaa baa la yidhi oo waa ku qarsataaye runta inaynu sheegno weeye dad shiddo ka shaqeeya dalka jooga. waxaynu u baahannahay wixii nabadgelyadeenna waxyeelaya magacay doonaan ha yeesheene inaynu ka hor tagno oo haddii aan walaalayaaluna daayaan leenahay haddayna dayn waayaan inaynu iska qabannaa waayo jiritaankeenna khatar gelaya haddaynaan iska qabanno. markaynu nabadgelyada ka shaqaynayno waxa muhiimka ah oo hubka dhigista la yidhaahdo dee hubka dad baa watay. dadkii watay oo hubka haystay waxay u badnaayeen milishiya. qolyo kalena waa jiraan magacooda haatan halka ka sheegi mayee oo iyagu laftigooda sidii urura u dhisan. waxaa loo baahan yahay hubka markii laga dhigo iyaga laftigoodu Soomaali bay ka dhasheen oo Soomaali weeye inaan suuqa lagu sii dayn in shaqada markii hubkii ay iska dhigaan
in dhaqan celin loo sameeyo la jiheeyo camal ay ku shaqaystaan la baro bulshada ay ka mid noqdaan markaan ka hadlo arrinta la xiriirta dib u heshiisiinta waxaynu u baahannahay walaalayaal dagaalkaynu soo marray ee sokeeye anigu wax badan baan dagaal ku jiray markaan maanta runta caddeeyo dagaalka hubaysan raggii bilaabay madax baanu ahaa 25 sano ka hor jabhaddii ugu horreysay oo hubka qaaday baan madax u ahaa xabadi waxay tahay waa aqaan xabadi waxay tahay ninkii oo dagaal yaqaan baana nabadda qadariya oo macaankeeda yaqaan waxaa loo baahan yahay waxaa la yidhaahdaa nabadii wiil bay cuntaayee wiil kuma dhasho waxaa loo baahan yahay inaynu nabadda u guntanno dadweynaheenna soomaaliyeed ee islaayay ayaan darro isagoo walaala ah oo isku reer ah anigu haatan qaran odhan maye kulligeen oo dhan waxaynu nahay qoys baynu nahay isku af baynu nahay isku diin baynu nahay isku dhaqan iyo isku culture baynu nahay innagoo sidaasaynu haddana islaynay waxaa loo baahan yahay inaynu ummaddeenni meel isugu keenno oo dib u heshiisiin u samayno oo inta laysa saabaxo wixii la soo dhaafay layska ilaawo sida gobolaan ka imid laga yidhaahdana wixii horay u dhacay xaladhalay in laga noqdo waxay la tahay dhammaanteen waa ognahay midnimada Soomaaliya inay inoo tahay shay lama huraan ah oo muqaddis ah marka dib u heshiisiinta haddii waxaan ku darayaa walaalaheen waqooyiga Soomaaliya oo iyagu la baxay Somaliland dad walaalaheena weeye dad runtii aan aad kolley anigu nin baan ahay idinkana waa filayaa aan uga xanuunsanayo wixii dhibaato hore u gaaray weeye waxaa loo baahan yahay dawladdu markii xukuumaddu markii la dhiso wada xaajood nabadeed iyo sidii loo soo celin lahaa midnimada ummadda Soomaaliyeed in lagu soo dabaalo arrintooda waana xaaraan mana suura gelayso xabad dambe inaynu ridno aan xabad ula tagno oo la dagaalano walaalahe walaalayaal dalkeennu waa burburay waxaan oran karaa wax caawa ka nooli ma jiraan wixii infrastructure ahaa iyo wixii magaalooyin ahaa iyo waxaynu horay u qabannay oo ku soo tacabnay iyo wixii ila dhaqaalaha waa burbureen waxaynu u guntanaynaa inaynu dib u dhis inaynu gallo muddo dheer ina ka qaadan doono waayo dalku waxba kuma noola laakiin inaynu dib u dhis gallo lama huraan weeye haddii kale qarannimadeennu taabagal noqon mayso arrimaha aan kor ka sheegay oo ah dhismaha qaranka oo ah arrimaha amniga oo ah arrimaha dib u heshiisiinta iyo dib u dhiska inoo socon mayaan oo dawladdaynu dhisannaa keligeed kuma filla waxaan markaa sidaa darteed rajaynaynaa adduun weynaha oo dhammi inuu inoo soo gurmado oo gacan buuxda ina siiyo sidii aynu jamhuuriyadda Soomaaliya uga dhigi lahayn waxay ahaan jirtay jamhuuriyad xora gobolkan wax ka degan walaalaha kale ee gobolka inala deganaa iyadoo la siman wax la qabsata ay wada shaqeeyaan isna kaashadaan Soomaaliya intay xor noqotay anigu hana qaad baan ahay waa joogay haatan yar maahi 44 sano ka hor waa joogay oo sarkaal ciidamada ahaa 44 sano gudahooda waxa ka dhacay gobolkeena waa ka warqabaa waxaan rajaynayaa gobolkaani xasilooni waarta inuu helaa inuu gacmaha isqabsadaa inaan walaalaha kale aynu dariska nahay ee gobolkeena la jooga innagoo mida ka wada shaqaynaa mustaqbalka gobolka iyo amniga adduun weynaha intaba waxaan jeclahay haddaad ii saabaxdaan inaan ku celiyo waxaan hore u yidhi Soomaaliduna waxay tiraahdaa hadalka haddaad doonayso in la fahmo ama waa lagu dheeraystaa
أنبا والوع العليا وحان شعرهاي إن دلالك أفريكا يا الدوينه أردن أنا وكيل كان عدس أسود شديو إن إسلكين قرب تاجان إذا أبني نقال الدولة كل شقيسه هي أقونسي دبلوماتية إلا هذا لنا أقون سنين مركزي وحن شيلون وكلين الناي دوينها الصوماليات وحن أسود شدينا يا عدسها وحين ما أنت كبل وده ولا ريال وحلينا قدونا يا قرن كأني إن ندور اسمه قرن كنا وحنا اسمه يا دولة إنه هاتن لسه إنه يقلل إنه تدوينه هدو لا شقيه وإنت هبك إسكتيريو إسكتيجو جنب وحدة كوسيو وعقبت كي دولة سيدلك إنه قصوا تبحنه بربرك يا دوات هذا وحان إذن كعد سنة يا إن إسكيل لودان وحد روس مرتين وحيد كالجاري وحان خشينا يا دمانتين إنه وضع صعنا إنه صو أبشرها لواتها إن كده دعضي مدة شرتي وعن حصوصنا هاي هذا أنا حبس فديا هيسان دقي سنشري أنا حبس فديا هيسان دقي سنشري فنانين في راديو مقدشو وحي أورنشرين دمر إيه الرقبة إن سود ريرشي أورنشري مركا أنا دريرنو نبض ولا النمو سابحات إيوه قرنوا دي الصوماليات سيدين وصلنا ولا لهين وعن هذا الكيكا كسو جبين يا وعن فيلا يا بري واصون ولا ريال وعن إذن الله هاي رمضان كريم وأنا ما سنتي si aad ula socotid mar walba muuqaalada cusub ee soo socda subscribe ka taabo gambalaalka furo